khabiirka majalada Calcio Mercato gaar ahaan qaybta wararka suuqa kala iibsiga Fabrizio Romano ayaa soo xigtay in ciyaaryahanka qadka dhexe ee kooxda kubadda cagta Real Madrid xidiga lagu magacaabo Luka Modric uu u sheegay madaxweynaha kooxda Florentino Perez inuu doonayo inuu isaga tago kooxda. Arrintan ayaa noqonaysa la yaab kadib markii kooxda Inter Milan ay dalab ka gudbisay ciyaaryahankan qadka dhexe ka ciyaara ee reer Croatia. Madaxweyne Florentino Perez ayaa xaaladda ku sii xumaan doonta iyadoo la ogaa in Cristiano Ronaldo uu ku biiray kooxda kubadda cagta ee Juventus. Perez ayaa ku kalsoon in qaar ka mid ah ciyaartooydiisa kooxda ay joogi karaan, balse Luka Modric ayaa hadlay wuxuuna sheegay inuu rabo inuu ka tago Real Madrid loona ogolaado ku biiritaanka kooxda kubadda cagta Inter Milano. Romano oo ah falanqeeye dhanka ciyaaraha gaar ahaan wararka Talyaaniga iyo majalada Calcio Mercato ayaa xaqiijiyay in kooxda kubadda cagta Real Madrid wada hadallo ay kula jirtay shalay Mauro Icardi. Wakiilka ciyaaryahanka ahna gabadha u dhaaxda Mauro Icardi ee Wandanara ayaa wada hadal la furtay kooxda kubadda cagta Inter Milan oo ku aadan in Mauro Icardi laga iibiyo Real Madrid. Sidaa darteeda Inter ayaa xooga saari doonta sidii ay ku heli lahayd kooxda kubadda cagta Real Madrid ciyaaryahankeeda qadka dhexe xidiga lagu magacaabo Luka Modric.